السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال إذا لهانتينا ومال والبوا جوكتان يسوى البوا مقال كين إذين سو قاريو هل كان يوا تلفزيون كشمس حرنتيسا مقالة نيروبي كسر دوادا تبنتين توسكا هدي الله قدره قضبضا يوربحنا ذا أتكم مغلي دونتان باهنتين مانتا وحاكم من غندون رئيس صومالي حسن علي قيري ومقالة قال كعيو كلمة كل قيبها كلا دوان برشاد الديجان كدجن odayaasha dhaqanka degmada Cadaado oo shuruudo cusub ku xiray in ay la kulmaan Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag qaramada midoobay oo ka hadashay xiisadda u dhaxaysa maamulada dariska ah ee Puntland iyo Somaliland maamulka gobolka Banaadirna waxa uu soo saaray awaamiiro la xiriira dhinaca amniga caasimadda qodobadaas iyo qodobo kale ayaan maqli doontaan haddii alla qadaro ee ku soo dhawaada tabinteena wararka dunida oo faahfaahsan daawadayaal mar kale kulan wacan soo dhawaada khiyaaray waxaynu si toos ah u guda gali doonaa tabinteena akhbaaraadka dunida waxaynu ku bilaabaynaa haddii alla idmo warbixinteena ugu horeyso ah safarka Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ee uu ku joogo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo macluumaadada ka soo baxaya haatan Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre wafdiga la socda oo dabcan jooga magaalada Gaalkacyo ayaa kulamo la leh qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaas kadib markii ay halkaasi gaareen shalay galinkii dambe Wasaaraha ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug isagoo kala hadlay doorkooda dib u dhiska Galmudug iyo nabadda gobolka ay ka wada qayb qaadan karaan sidoo kale Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa la filayaa inta uu ku sugan yahay xarunta gobolka Mudug ee Gaalkacyo in kulamo kala duwan uu la qaadan doono odayaasha iyo waxgaradka magaalada Gaalkacyo isaga oo kala hadli doona sidii loo dhisi lahaa Galmudug oo midaysan oo dadka deegaamadaas wada degana ay ku wada qanacsan yihiin Khayre ayaa marar badan sheegay in uu aad u danaynayo gaaritaanka in dadku deegaanku ay ka wada shaqeeyaan mustaqbalkooda iyo masiirka deegaanka kaasi oo uu sheegay in ay ku xiran tahay horumarka dadka iyo deegaanka waxaana uu xusay in dawladdu ay muhiimad weyn u aragto taabagelinta qorshayaashaas oo uu sheegay inay tahay fursadda ugu muhiimsan oo dadka iyo deegaanku ay haatan haystaan waxaana uu sheegay in dadka reer Galmudug ay dabcan wixii aragti iyo dabcan talo la xiriirta dhismaha maamulkaasina ay dawladdu ka dhageysan doonto iyagoo fursad loo siin doono in ay cabiraan qoraahdooda midaysan iyo sidoo kale helitaanka Galmudug loo wada dhan yahay waayahay isla wararka Galmudug iyo kulamadan ayaanu ku guda jirnaayay odayaasha dhaqanka degmada Cadaadana waxa ay shuruudo cusub oo hor leh ku xireen in ay la kulmaan Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre tani waxay daba socotaa kadib markii shalay ay ka hor yimaadeen in Khayre ay gogol wada fariistaan sababtuna waxa ay ku sheegeen in ahdiyo ay wada galeen uu uga baxay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada Cadaado oo ka tirsan gobolka Galguduud ayaa lagu soo waramayaa in wali ay ku adkeysanayaan mabda'ooda ah inaysan la kulmin Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ilaa iyo yiraahdeen inta uu ka fulinayo tabashada ay qabaan dadka degan degmada Cadaado Khayre ayaa la xusuustaa in shalay markii uu tagay Cadaado ay diideen odayaasha inay la kulmaan iyagoo dabcan dhaliilsanaa ee hadallo iyo talooyin ay markii hore la wadaageen balse uusan waxba ka qabanin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulkii Ximin iyo Xeeb ee ka jira deegaankaas haatan ka mid ah waxgaradka Cadaado Cabdi Axmed Maxamed Suldaan Cabdinuur ayaa warbaahinta gudaha ee Soomaaliya u sheegay in waxgaradkii odayaasha Cadaado aysan xilligan diyaar u ahayn la kulanka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu sheegay in tan kaliya ay kulankaasi ku ogolaan karaan oo ay Khayre hor fadhiisan karaan ay tahay in Ra'iisul Wasaaraha uu wax ka bedelo go'aankii iyo mowqifkiisii uu ku dhawaaqay kowdii bishan ee ahaa in doorashada iyo shirka dib u heshiisiinta Galmudug lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya sida muuqata odayaasha dhaqanka Cadaado waxa ay ka biyadiidsan yihiin in ay Dhuusamareeb kulansato shirka
dib u heshiisiinta iyo gogasha doorashada oo ay sheegeen inay tahay mid aan haatan si dhow loo aqbali karin ama aan loo yeeli karin marka la fiiriyo in iyagu ay tirsanayaan sadbursi ka madax bannaan wax wada qaybsiga quman ee deegaanka. weli tabinteena tooska ah ee telefishinka Shumis ayaa la socotaan daawadayaal, markaana waxaynu aadaynaa dagaalo laga soo sheegayo qaybo ka mid ah gobolka Sanaag iyo macluumaadyo hor leh oo ka soo baxaya colaadaas. waxaa isa soo taraya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee uu geystay dagaalkii ka dhacay duleedka deegaanka Ceel Afweyn oo ka tirsan gobolka Sanaag, kaasi oo lagu soo waramayo inuu u dhaxeeyo laba maleeshiyo beeleed oo deegaanka darirtu ay ka socoto deegaan ahaan u wada degan. dagaalka oo markii hore ka bilowday deegaanka Duud Caraale oo ku yaala galbeedka gobolka Sanaag ayaa la sheegay inuu ku fiday deegaano kale, isla markaana dagaalka xooggiisa uu ka dhacay shalay galinkii dambe halka. goobjoogayaal iyo saraakiisha caafimaadka ee deegaanka Ceel Afweyn ayaa warqabadka telefishinka Shumis waxay u sheegeen in dadka ku dhintay dirirtaas ay gaarayaan ilaa ay hadda tiro ku dhow 25 ruux, halka sodomeeye kalena ay waxyeelo ka soo gaartay colaadaha deegaankaas dib uga soo cusboonaaday haatan. ma jirto ilaa ay haatan cid kala dhex gashay maleeshiyaadka deegaanada hoostaga deegaanka Ceel Afweyn ku dagaalamaya, waxaana dagaalkooda uu yahay mid soo laalaabtay oo dhowr mar heshiis laga gaaray balse aanu dhaqan gelin sida ka muuqata colaadan soo laalaabatay. dadka deegaanka oo qaybtood la hadlay telefishinka Shumis ayaa sheegay in gogasha dib u heshiisiinta ee marar badan deegaanka ka dhacday aysan ahayn mid guud iyo sidoo kale mid ka turjumaysa xaaladda rasmiga ee deegaanada ay dirirtu ka socoto ka jirta. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo kulan degdeg ah la qaatay saraakiisha ciidamada ayaa amray in si degdeg ah ciidamo ka tirsan militariga Somaliland loo kala dhex dhigo maleeshiyaadka diriraya. wararkii ugu dambeeyay ee haatan aanu ka helayno deegaanadii lagu dirirayna waxa ay soo warinayaan in wali labada maleeshiyo beeleed ay is hor fadhiyaan, isla markaana mararka qaarkii la maqlayo rasaas teel ah, taasi oo dadka deegaanka ku haysa walwal iyo walaac fara badan oo la xiriirta badqabka noloshooda iyo deganaanshiyaha deegaankooda. waxaana ay dabcan ka walwalsan yihiin suurtagalnimada ah in mar kale dib uu ugu soo laabto colaadaas oo haatan ay rumaysan yihiin in heshiis guud iyo dabcan waxyaabo kale oo xadeynaya ama xakameynaya aanu jirin. waayahay qaramada midoobay waxa ay ka hadashay xiisada u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Somaliland. wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswan ayaa kulan uu madaxtooyada Puntland kula qaatay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa qodobadii ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa xiisada u dhaxaysa maamulada dariska ah ee Puntland iyo Somaliland. xisadaas oo dhowr mar gacan ka hadal ku badashay ayaa waxaa jirta in deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag ay dabcan ciidamo wali isku hor fadhiyaan deegaanadii lagu dagaalamay ee labadaasi gobol ka tirsan. James Iswan wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ugu baaqay labada maamul ee isku haya goboladaas inay wax walba wada hadal ku raadiyaan, isla markaana ay joojiyaan xiisada u dhaxaysa. qaramada midoobay waxay aad uga xun tahay colaadda u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland ee ka taagan gobolada Sool iyo Sanaag. waxaan ugu baaqayaa maamulada Puntland iyo Somaliland inay wada hadal ku xaliyaan khilaafka u dhaxeeya ee gobolada Sool iyo Sanaag, ayuu ambassadorku yiri. colaadda u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa soo jiitamaysa dhowrkii sano ee ugu dambeysay, waxaan hore u jirtay in dhowr oo isku day in lagu xaliyo wakiilka hore ee qaramada midoobay qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysom, balse ma aysan guuleysanin dadaaladaasi. Hargeysa iyo Garowe ayaa lagu dhaliilaa dulqaad la'aan iyo in ay dirirtu ku bedelaan wada hadal iyo sidoo kale in ay wada noolaadaan maamulada dariska ah ee halkaasi wada dega.
wali tabinteena tooska ah ayaa la socotaan gabagabada ayaan ku sii siqaynaa markaana Muqdisho ayaan eegaynaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu amniga caasimadda ka soo saaray awaamiir la xiriirta sidii loola falgali lahaa xakamaynta hubka dareyska ciidamada iyo sidoo kale in ay ciidamadu sii xoojiyaan hawlgaladooda kadib kulan ay Muqdisho ku yeesheen guddiga amniga ayaa waxay ka soo saareen amaro dhinaca amniga oo la farayo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda iyo gaadiidleyda ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho kulanka ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ee xubnaha guddiga amniga gobolka Banaadir waxana kulankaasi uu daba socday kadib falal amni darro oo ka dhacay magaalada caasimadda amarada laga soo saaray kulankaasi ayaa waxa warbaahinta u sharaxay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana uu sheegay in marnaba magaalada Muqdisho aan lagu arki karin askarta ku labisan dareyska militariga waxaana qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda uu ka dalbaday inay joojiyaan ilaaladooda oo mararka qaar lagu arko gudaha caasimadda dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa digniin u diray milkiilayaasha gaadiidka sida bajaajta iyo gaadiidka kale isagoo u sheegay in gaadiidkooda diiwaan geliyaan isagoo sheegay in dadka iska iibiya gaadiidkooda oo u diiwaan gashan dhibaatadii lagu geystaa ay mas'uuliyadooda dusha u ridan doonaan amaradan ku saabsan dhanka amniga gaar ahaan in magaalada Muqdisho aan lagu arkin askarta ku leebaysan dareyska ciidanka militariga ayaa horey waxa uu soo saaray wasiirka amniga gudaha Soomaaliya hase yeeshee amaradaasi waxa ay u muuqdeen kuwa aan dhaqan galin qodobkaas ayaa gun iyo gabagaba u ahaa tabinteena tooska ee telefishinka Shumis baahinteena maanta waxaad ku maqasheen warar warbixino iyo macluumaadyo kale oo bulshadeena Soomaaliyeed la falgala dabcan tabintii waa inaga dhan tahay halkaan ayaanu ku soo afmeeri doonaa haddii Mawla qadaro inta aan tabinteena kale ee soo socota haddii Alla idmo aan ku kulmi doono daawadayaasheena qiimaha badanow waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waad ku maasantihiin mar walba daawashada iyo la socodka wararka warbixinada waraysyada macluumaadyada iyo xogaha xasaasiga ee aad kala socotaan Shumis TV